qof kastoo wanaagiina rabay waan wahsanayaaye dadkaasi waaxidkiyo wadarta badan labada kii assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh kulanti wacan daawadayaal mar kale kuna soo dhawaada barnaamijkeena wacyi barnaamijka wacyi waxa uu idinkaga imaanayaa stuudiyaha telefishinka Somali Channel oo ku leeyahay magaalada Minneapolis maantana waxaanu ku faraxsanahay barnaamijka inuu marti inoogu yahay Sheekh Cabdiraxmaan Cabdullaahi Xaaji Dabcasar waa imaamka Masjidul Qur'aan wa Sunnah ee gobolka Ohio ومجالة كولومبوس شيخ عبد الرحمن انت اصبح اوسي دير انه هذا كهر اسو شرحي جغدا مدحويننimada ee dalka Soomaaliya ana daawanay in badan debatekii iyo tartankii iyo ololihii siyaasadeed ee hanka siyaasadeed marka uu ku jiray una barnaamijkaas u sharaxna inuu madaxweynaha dalka Soomaaliya noqdo su'aalo dhowr ayaan ku weydiinaynaa siyaasadda Soomaaliya meesha ay marayso hankiisii siyaasadeed inuu wili ku jiro inuu ka baxay iyo arrimo kale oo badan oo noocaas ah sidoo kale waxaanu ku weydiin doonaa barnaamijka intuu socdo dhexdiisa waxaanu ku weydiin doonaa hadda dagaalada ka socda Soomaaliya al-shabaab la heshiintooda xal ma ku jirtaa dawladda iyo waxyaalo badan oo noocaas ah barnaamijka inuu martina u yahay sheekh oo ku faraxsanahay ku soo dhawo sheekh barnaamijka ay wariyaha qaliga oo Somali Channel waa mahadsan yihiin hawsha fiican ay u qabanayaan dalkooda diintoodana waa ku mahadsan yihiin mahadsanid ugu horeyntii Sheekh Cabdiraxmaan waxaad safar ku joogtaa magaalada Minneapolis waxaad ka imaatay gobolka Ohio iyo masaajidkii aad imaamka ahayd marka safarkaaga aad ku soo gaadhay magaaladan Minneapolis bal inooga waran si kooban bismillah alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam walaalahayga dunida dacalada jooga meel kasta aad joogtaan waad salaamantihiin si gaar ah waxaan u salaamayaa macallimiinteedii waalidiinteedii iyo cid kasta oo ka soo qayb qaadatay barbaarinteeda iyo waxbarashadeediiba waa mahadsantiin si gaar ah ummadda Soomaaliyeed meel shanta qaarada ay joogtaba walaalayaal sababta aan u meeshtan waxa weeyaan waxaan u maleynayaa magaalada in la iga bixiyay walaalahay yani inaan walaalayo oo ka qayb qaato walaalaynta iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed hadday noqon lahayd jaariyadda Columbus jaariyadda halkaan iyo jaariyadaha يعني حنوك هايستا يدبك هايستا سيدي لو قاري لها حل لو مدوبي لها حلوة قبصن لها لسعاون لها هوانك عرورها دينتيني أنو بدبادسن لهين لقنكيني هديهيني تاسو أن كبلوني ماشي وكبلا بين النبي الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مركو كهاجري مكة ونتغينا مدينة صدقراني سيد مسجد بو أساسي تدكينا وولا ليي يعني هالكاس جوغي ساسو كله walaalnimadii inaynu soo celino inama almu'minuuna ikhwa salligna waxa uu bulshada waa masaajidka marka in masaajidiyadii ay walaaloobaan ay gacmaha isqabsadaan ay say wax wada qabsan lahaayeen mid walba baahidiisa iyo xanuunkiisa loo ogaan lahaa oo yaani dhismayaalkan lacagaha qaaliga faraha badan lagu leeyahay sidii si wada jira loo bixin lahaa taas oo muhiimsanayd ilaahayna waa naga aqbalay subhanahu wa ta'ala sadalateen masaajidada midoobay ilaa hadda 10 masjid ay marayaan jazakallahu marka masaajidaas midoobay ilaa 10 masaajid maraya laftirkooda wax sababta ay ku midoobeen iyo waxyaalaha ay rabaan inay qabtaan wax faahfaahin dheer ama naga siin kartaa صادق تهيبا من مدى ولا اللي وحي الله سبحانه وتعالى وضدك مسلمين فري واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أمرنا الله بالإجماع ونهانا عن الفرقة إلهي وحنا فريئنا مدينة وحنا نودي دي كلا طقة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون مرك إلهي إنه ما أقرأ إنا كلا طقنا أو حقي أو الرأي إنا نقولنا إلهي وإن نودي دي إنا إنه هل أورو نقولنا إنا طبعا أورو نقول بإلهي سبحانه وتعالى أوربا إنا إنه هل كح نقولنا إنا نكح far badan noqon ay ilaahay rabaa marka ujeedada aynu waxa ahayd walaale tobankaas masaajid waa midownay alxamdulillahi rabbil alamin waxa ku midownay waxa weeyaan xaq ku midowna kitaabka ilaahay sunnada ala fahmi saxaabada rasul fahamki asxaabteeni yani wa taawanu ala albirri wat taqwa صحيح liskalmaysto gartay marka tobanka masaajid ee midowday markii hore waxay ahaayeen 9 masaajid dabcan mid baa gadaal hadda uga soo beeray 8 kamid ah waxay ahaayeen gobolkan Minnesota adiga kaliya oo ka socdo masaajidkaasna ama masaajidka imaam al-Qur'aan wa Sunnah baa ku jiray oo haya marka waxa la isweydiin karaa maadaama aad la midoobayso masaajid walaalaha oo ku yaala Minnesota ma jiraan miyaa masaajid oo haya ku taalo la walaaloobi kartay oo la مثلا
kootladiina kamid dhigi kartay walaal waa mahadsantahay waxaan kala ku faraxsanahay Nebraska ama magaalada Omaha masjid ku yaala asaguna inuu ku soo biiray waxaa jira masaajidyo ayaguna hadda xagga jooga ama masaajidyo halkan jooga oo doonaya ayaguna inay ku soo biiraan saad u tahay ba taasna way jirtaa oo magaaladaas masaajidada ka jira masaajid ayagoo ku dayanaya mid tan ay waxay bilaabeen inay hadda ayaguna ay maaragtay ay wax wada qabsi ay yeeshaan sidoo kale magaalada Seattle Washington oo aan joogay 2000kii oo aan kamid ahaa ragii masaajidada ka asaasay ayaguna waxay bilaabeen inay ay wax wada qabsigii waa gaartay marka tusaale fiican bay yani kulankanagii suumaadkanagii bay u noqotay yani wax lagu dadaama yani meel kasta wada joogo inay dhahaan war jahwareerka iyo khilaafka aynu ka baxno ku midowna xaqa kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam gartay Sheekh Abdirahmaan waxaad kaloo aad caan ku tahay inaad siyaasadda dhinaceeda naqdiso ka hadasho waxaana lagu yaqaanaa hadda ka hor inaad isu sharaxday jagada madaxweynenimada ee dalka Soomaaliya wataad Minneapolis nooga timaado debatekaagii sida uu aan loo daawaday maxaa kugu dhaliyay adoo imaam masaajidka ah macallin dadka diintii bara inaad isu sharaxdo jagada madaxweynenimada ee dalka Soomaaliya walaal waad mahadsantahay siyaasaddu horta caalamkan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa abuurtay asagana iska leh wuxuuna ugu talagalay Ilaahay subhanahu wa ta'ala in dadka mu'miniinta ee saalixiinta ay hogaamiyaan ba Ilaahay ugu talagalay subhanahu wa ta'ala saad ogtahay bani Israa'iil kaanat tasusuhum al-anbiya nabiyalka ayaa xukumi jiray oo maamuli jiray boqortooyo iyo mulki iyo salax Ilaahay fasaad kama raba adduunka wuxuu ka rabaa wanaag buu ka rabaa systemka ugu talagalay buu ka rabaa haddana waxay halkaas ku noqdo anigu waxaan kamid ahaa raggii wax ku soo bartay jaamacadda qaranka ummadda Soomaaliyeed oo maanta qarankeena aynu laanahay la foole ayaan anigu ka soo baxay macallinima la soo tababaray education free ayaan haystay tacliin baan haystay waxaan ka soo major in agriculture beerahan ayaan ahaa yani iyo biology oo minor ahaa marka dabcan waxa u soo bartay wuxuu ahaa dalkayga iyo diintayda iyo dadkayga ayay ahayd dabcan yani waana ka danqanaya waxa dhibkayga ka jira oo wax dhaama hadaan waayo war kuwa joogow war rag iska dhiga oo daacad noqda oo dalkiina hogaamiya oo Ilaahay baa mas'uuliyadda idin dhibay hogaansha hadina hogaamin karin yani kursi jacayliga ma aha laakiin waxa iga tahay danqashaan dadkayga u dhaqanayo marka waxaad tiri tusaale u soo qaadatay in ambiyadu dadka hogaamin jirtay ma waxaad aaminsan tahay مثلا wadaadadu inay jagada madaxweynenimada iyo dalka hogaankiisa leeyihiin oo aad leedahay مثلا siyaasiyiinta aan wadaadada ahayn ayagu xaqba uma leh inay dadka maamulaan kuwa diinta yaqaana xaq u leh inay dadka maamulaan saas miyaa leedahay wala la gacali إلهي سبحانه وتعالى بهرت بقرطوية بحية والله يؤتي ملكه من يشاء إلهي بهرت بحية قفك الدورون السياق قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء كادون تنواسي سكاد دونوا كقادا لكن وحا ميشت على وحويان أهل الخير كي صلاح أهل الفساد والشر اسكمد معه قف إلهي حق سيما يقانا حق شعب كسي أمد سي يقانا اسكمد معه مركا انتاس هو مهم طبعا ده سومالي وحيكون ما جرت وداد يعني ودي المودي جري وداد يعني انه وحبا هنا ولا سكيس وداد وانين لبها وين اي وداد بس سو نقطه وروح شغال ما جرت وداد واحد كستو ربا رد عليه شيغيده انه كان خبطو ربا يعني هوينك جعلنا نعم هوينك وجعلنا نبي محمد بجعله حبب إلي من دنياكم ثلاث